lamaana is calmaday, lamaana is doortay, lamaana kalgacayl muujiyo oo markaas dadka iskaga dhaxay hambalyo qof shalay u taagnaa inuu hambaliyo qoyskaas ayaa maantana wuxuu u taagan yahay taageerahayga waa sida qoyskayga waxay i dhiirigeliyaan sida military waxay ila taliyaan sida aan u daalin ila soo horaabkayga wax ka baar. Assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa salaam dhammaan asxaabtayda qaaliga meel kasta joogtiin soo dhawaada Jibrani fadlan daa cusubtay soo dhawaada hore joogtiin aad iyo aad u maastay channelka daa soo Jibrani qofka ilaa qof kalma miskiinka Jibrani aha guys soo dhawaada muuqaal kale cusub intaan muuqaalka guud gal waxaan rabaa inaan maad celiyo dhammaan asxaabtii igu soo biirtay haddana channelkayga soo booqatay haddana subscribe-ka ii soo saaray sida sharafta leh subscribe-ka igu saareen oo haddana ay la joogaan waxaan leeyahay aad iyo aad ugu maastihiin waana ka mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad soo dhawaada ay leeyahay ru'aantii YouTube-kayga waxaan ka maqlaa almost 4 cisho wax ma soo gelin mana aysan dhicin baryahan inaan 4 cisho dhan YouTube-kayga ka maqnaado laakiinse waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan asxaabtii soo wacday oo marka Instagram-ka iyo Snapchat-ka iga soo waceen i weydiiyeen Jibrani maxaa kugu dhacay ma xanuunsan tahay xagee ka baxday baryahan 4 cisho ma soo gelin halka horta waa sidee walaalahaas aad iyo aad u mahadsiin sida sharafta leh oo markaas ay soo waceen haddana ay igu xirnaayeen Jibrani maxaa kugu dhacay baryahan YouTube-ka maxaa soo gelin laadahay ana mashquulsanaa وانا ugu mahad celinaa saas ay soo xasuustay ma sha Allah horta sidoo kale YouTube-ka horta markasta YouTube la moodi karo oo qofka bil aadanka u joogo waxba qabsan kara hawlo kale u yeelan kara program kale u soo bixi karo u samaysan kara marka qof ma ahan qof ma jiro YouTube-kan daba joogaya oo habeenkaas wax soo gelinaya ilaa iyo qof markaas free ah oo markaas time haya inuu markaas soo geliyo ru'aantii aniga baryahan waa mashquulay arrimo markaas anigaas aan ku mashquulay oo markaas aan soo xalisanayay alxamdulillah ru'aantiina waa soo dhamaystay hadda ka bacdi waxaan rajeyn doonaa inaan soo laaban doono oo markaas ay fiidiyo ahaan doonaan kuwa taxana ah insha Allah ta'ala sidoo kale waxaan ka cudur daaranayaa baryaha dambe haddii aan naga weydeen haddaan reer Malaysia dhan inaan soo gudbino vlogyo aadkii u qurux badnaa soo gudbin jirnay ama challenge-yadii aan ku sameyn jirnay meelaha xadiiqada ama beeraha quruxda badan leh intaas dhan baryahan way naga xiran yihiin horta moolalkii magaaladii dhamaa isku socodkii wixii bulshada waxaas dhan way xiran yihiin saa awgeedeen ba adduunka waxaa ka jira cudur aad u saameeyay dunida dhan caalamka markaas ayaa anaga nasaabadareen Malaysia nahay haddana hadda wuxuu maroyaa xaalkii ugu darnaa ayuu maroyaa ilaa ay maalintii ka soo dhacaan 9,000 oo qof in maalintii soo dhacdo ayuu maroyaa marka kulta wadankan bando ku jira 2 saac habeenkii ayaa la haroodaa 2 saac subaxdii waxa nagala furaa irida yaani hadda agtinteen dad yaani maxbuus cawalanay 2 saac haroona 2 saacna ku soo baxnaa alxamdulillah waxaan haysanaa caafimaad waxaan haysanaa nabadgelyo ilaahayna anaga qabto cudurkaas intii muslimna ilaahay ka qabto xaaladaas ayaan markaa ku suganahay haddii aan naga weydeen lacala haddii aan naga weydeen vlogyadii aan soo duubi jirnay fiidiyoyada aad u quruxda badnaa oo markaas beeraha intaan isugu imaano dhalinyarada Malaysia ay soo duubi jireen waa la diiday arrintaas mana soconayso ilaa iyo amar dambe dowladda soo saarto ama cudurkan uu yaani soo yaraado markaas waxay noo noqon doontaa insha Allah ta'ala inay Malaysia ku soo noqoto Malaysiadii hore insha Allah ta'ala guys soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaalka la cusub muuqaalka maanta ka hadlayno ru'aantii antu soo fadhiis wax kale ma ahan waxaan rabaa hambaliyeeyo ama aan hambaliyeeno anagoo ah team Jibrani dhamaanteen lamaana is calmaday lamaana is doortay lamaana kalgacayl muujiyo oo markaas dadka iskaga dhaxbaxay alfanaan ilka case iyo marwadiisa nimca joker oo sidoo kale iyada si fiican umada Soomaaliyeed ay wada yaqaanaan inta isticmaasha social media ilka casana waa fanaan Soomaaliyeed dhammaan Soomaalida wada yaqaanaan lamaanahaas horta waxaan leeyahay hambalyo ilka case qays iyo nimca joker isku waara kala heela ubad khayr qaba insha Allah ta'ala sidoo kale baryahan dambe social media dadka isticmaala haddii aan fiirino haddii aan dadka TikTok-ka isticmaala Instagram-yada YouTube-ka Facebook-ka yani dadka social media caanka waxaa jira sometimes inay markaas ay nala soo wadaagaan xaflad oo markaas aroos ay sameysanayaan laakiin waxa markaan u hambaliyeeno ama Soomaalida hadana u hambaliyeyso waxa ayaan dara hadana ah
oo haddana bil ka bacdi ama 2 bil ka bacdi la arkaa dadkii shalay loo hambalyeynayay oo haddana lagu kala guraayo meeshii shalay loogu hambalyeynayay qof shalay u taagnaa inuu hambaliyeeyo qoyskaas ayaa maanta wuxuu u taagan yahay inuu kala guro qoyskaas oo dhoo hebel iyo hebel iyo heblaayo way kala tageen waxyaalo noocaas marka dhammaan horta waxaan leeyahay reer social media dad ku jira haddii aan lahayn fanaaniin iyo haddii aan lahayn youtubers iyo instagram dadka isticmaala dadka social media isticmaalo bulshada wada taqaano ama qof kastoo shakhsi Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii ay ku imaado waxyaalaha noocan aad aragtid xaafadaada dhib ka yimaado ama waxyaalaha dhib keenayo ma ahan muhiimada qofku inuu la soo wadaago social media dadka Soomaali la soo wadaago Soomaalidu garnama social media ma aha meel gar lagu kala qaado ma aha meel maaragtay wax lagu xalinayo laakiin qof kasta waxa fiican lamaana waa isqaban karaan waa isku dhici karaan waa istaaban karaan wax waa kala dhici karaan laakiin waxa haboon wax kastoo yimaado inay ku xalisiin miiskooda hadalka loo fariisto tartiib maxaa khaldan maxaa jira maxaad cabanaysaa maxaa sameyn karnaa qofka raali geli noosh hor u sii socoto laakiin bataatan waxa mamnuuc ah ama khalad ah dadka qaarkood waxay sameynayaan iyagoo shalayto guursaday oo haddana bil isla jooga ayaad waxa arkaysaa qofka meel ka soo hadlaya gabadhii meel ka soo hadli wiilkii meel ka soo hadlaa waa la soo ataaga waa la isdhawaateena dadkii kale social media qofku soo qaadana reerkaas maxaa ku dhacay reerkaas waa isdagaaleen yaani taasna waa ayaan daro baryahan dambe social media lagu arkay si kastay aataba haddii family yahay oo xaafad lagu wada nool yahay lamaana leeyahay waxaa qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan haddii ay wax dhacaanba in lamaanaas ay xalistaan hawshooda u soo istaagaan maanta ma jecli aniga dadka ay meeshan u fadhiyo oo fanaanka iyo Naciimo Joker inaan biri u soo fadhiisto war dadkii maxabka dhacay maxay tahay xaaladooda see la isku hayaa waxyaalo nooc dad soo fariisanaya jira laakiin anaka hadda u duceynaa waxaan leenahay horta isku waara insha Allah ta'ala kala helana ubad khayr qaba laakiin haddii lacala wax yar oo gafa iyo wax yar oo maaragtay imaadaan waxaan idhi la arintiina xalista wax kastana waxay ku fiican yihiin in tartiib loo xalisto bataatanba waxaa haddana aad iyo aad baryahan social media ugu soo badatana in dadkii familka ahaa qof kasta waxyaalaha uu tabanayay uu la soo wadaago dadka social media ku jira ama bulshada Soomaaliyeedna dadka qaarkoodna qaabkii baan uga hadlayaa ugu dambeyntii inaan ku sii dheeraado muuqaalkan mar rabo ilka Case Qays oo ku meersaday marwadiisa Nimco Joker lacag dhan ugu dambeynkaas ku soo gurgubanaya muuqaalkan fadlan cusubta soo dhawaada wajidin aad oo maastay haddii aad ka helo ka raali gelin aad ka heshan waxaan ku leeyahay thank you so much like no star si share garay